قصة عجيبة والله يابله رجل داعية من من المغرب داعيك ودنك مغربك يرى في المنام وحوردك أركها يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزوره في النبي المنام صلى الله عليه وسلم وحوردك يقول يا صوبوقاني أو كله اذهب إلى هبلو فلان وحد ابن أدا فلان هبل إني هبل وأخبره أنه من أهل وحادنا الجنة. أشيكتا إنه أهل الجنة كمدي هاي زبن كينان أي قصة دعضي تأتي الليلة الثانية habeenkii labaad isla riyada ayuu arkaa تأتي الليلة الثالثة habeenkii saddexaad isla riyada ayuu arkaa هذا الرجل المغربي ninka maqribiga ah si toosa ayuu u tegey له وأغراضه hantidiisii واتجه إلى ayuu مكة qaatay حرسها الله maka ayuu aaday عمرة waa uu cumraystay يتصل ببعض kadib wuxuu bilaabay dadku yaqaanay inuu la xidhiiro oo ducaadda ka mid ahaa ee saalixiinta ahaa waxaan doonaynaa ninkaa hebel hebel la yidhaahdo فتشوا عنه way fatasheen way baareen ugu dambeyn way heleen xaafadda hore ayay ka heleen وإذا بهم يدخلون هذا الحي ويسألون xaafaddii ayay soo galeen way weydiiyeen ninkii dadkii ayaa nimankan ninka baaraya arkay waa dad wanaagsan muuqaalkooda iyo hanaankooda wanaagsan haddaan hebel baan doonaynaa bay leeyihin waxay yidhahdeen maxaad ka doonaysaa ninkaas munaasib idin ma aha waa ninkaas nin kharbaan ah dad saalixiin baa idinkuna tihiin waxay yidhahdeen waan doonaynaa xaggiisa ayay aadeen way heleen wuu u soo baxay daacigaa wuxuu leeyahay inoo soo baxay الذي كان في مخيلته أنه رجل waxay islahaayeen nin caabida weeye gar weyn leh wejigiisa u ifayo وإذا بي أتفاجأ misana waa nin aanba sidaa ahaynba قال خاف منه wuxuu yidhi way naga baqay wuxuu yidhi waryaa tihiin اقترب منه هذا الداعية daaciga ayaa u soo dhowaaday wuxuu yidhi warniyahow hebel hebel ma tahay wuxuu yidhi haa waa nahay ماذا تريد wuxuu yidhi maxaad doonaysaa wuxuu yidhi waan kuu imid أبشرك waxaan kugu bishaaraynayaa inaan nebiga sala allahu calayhi wasalama aan arkay 3 ليال 3 habeen والله ما كذبت عليه. wallaahi inaanan been kuu sheegayn قال اذهب إليه wuxuu igu yidhi orod hebel aadoo ugu bishaaree inuu ka mid yahay ahluljannaha يقول هذا الرجل وضع يديه على ninkaa wuxuu leeyahay madax ayuu gacanta saaray dhulka ayuu ku dhacay wuxuu yidhi ma aniga ahluljannaha ka mid ah أن تكذب علي been baad ii sheegaysaa wuxuu yidhi wallaahi inaanan been kuu sheegayn وتوي فرغ hadda ayaan soo faaruqay cumrada suurtagal lama ahna been kuu sheego قال أنا wuxuu yidhi ma aniga وجلس يبكي waa uu fariistay isagoo ooyey wuxuu yidhi inakeen xaramka aadnay ثم قال له هذا الرجل الداعية kadib daaciga wuxuu yidhi ilaahan kugu dhaarshay العمل الذي صنعته camalka aad samaysay waa maxay قال أنا wuxuu yidhi ma aniga إني أفجر واحد في هذه wallaahi ruuxa ugu faajirsan ee magaaladan baan ahay إني أشد إجراما في هذه wallaahi kan ugu mujrimsan baan ahay haddaananba waddanka dhan aanan ugu mujrimsanin مقصر فيها salaadda waan ka gaabiyey xaramka waa dhinacayga sanado maanan tegin قال راجع نفسك wuxuu yidhi bal dib isugu laabo عمل هنا وهنا bal camal un baar ما فيه إلا عمل wuxuu yidhi wallaahi hal camal un baan xusuustaa أن فلان wuxuu yidhi ninkaa hebel ah oo dariskeenna ah توفي waa la oofsaday waa uu geeriyooday gabar iyo carruur buu ka tegey فأقسمت بالله waxaan ilaahay ugu dhaartay امرأتي بي inaan mushaharkayga u qaybiyo aan qaybsanno annaga iyaga بيني وبينهم والله من ذلك القسم wallaahi aan ku dhaartay laga soo bilaabo maalinka aan dhaartay ilaa haddeertaan mushaharkayga بين أطفالها وأطفالي waxaan u kala qaybiyey carruurteedii iyo carruurtooda يعمل هذا العمل yaa camalka samayn kara صلى الله عليه nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kan u taagan garoobta iyo miskiinka wuxuu la mid yahay kan ilaahay dartii u jihaadayo kan sooman aan afurayn iyo kan taagan oo aan daalin ayuu la mid yahay wuxuu yidhi kan xaramka aadnay wuxuu yidhi maya sida tan xaramkuma aadayo waa uu baxay uu soo qubaystay ملابس labiskiisa ayuu soo xidhay xaramka ayay soo aadeen يقول أول ما دخلوا إذا wuxuu leeyahay markii ugu horreyso ay galeen waa uu ooyey دمعاته ilintii muusan joojin salaadda ayaa la aqimay imaamkii ayaa tukaday aayaadkii ayuu akhriyey في حالة بكاء شديد misal ninka kale aad buu ooyayaa wuxuu yidhi aniga oohintiisa ayaan la ooyey ragcada koowaad ayuu tukaday tan labaad tan saddexaad سجدتي قبل الأخيرة sujuudda ragcada ugu dambaysa ka hor madaxiisa sare uma uu soo qaada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku oofsaday الله كريم ilaahay waa deeqsi والله لن تدخل الجنة wallaahi inaadan jannada ku gelayn garkaaga iyo dharkaaga iyo hantidaada ولا بعباداتك
iyo cibaadaadkaaga iyo salawaadkaagaba ee waxaad jannada ku gelaysaa qalbigaaga hadduu yahay mid ilaahay run sheegay camal basiid aad u liita markuu kula yaryahay ha ahaatee ilaahay la weyn ilaahay agtiisa ku weyn camal adiga kula weyn indhahaaga ayaa suurtagala inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka yeelo mid yar oo liita aan la aqbalin isla weyni kugu jira sababkii ha quusanina waxaad la tacaamulaysaan alle kariim ah kadib xasila waxaad tihiin ogaada muslimiin